bilowga filinka xili subax ah guriga Amy dhexdiisa waxay ku aragtay bisad ku dhacday ceelka biyaha oo biyaha dhexdooda ku dhibaatoonaysa waxba kama aysan soo qaadin bisadaas oo daaha ayay ka xiratay ka hor inta aysan isku diyaarinin iskuulka waxay calaamad saartay jadwalkeeda maalinlaha waxayna hagaajisay abaalmarinteeda taas oo muujinaysa inay tahay gabar nidaamsan oo karti leh markay la quraacanaysay aabaheed David oo ah nin kaligiisa ku noqday nolosha ayaa Amy waxay u sheegtay in iskuulkeeda uu bixin doono bilad lana siin doono ardayga ugu fiican bishaas Amy ujeedadeeduna waxay tahay inay ku guulaysato biladaas waxay kaloo weydiisay aabaheeda inuu weli uu doonayo inuu qof cusub uu la saaxiibo balse waxay u sheegtay inaysan dhibsanaynin midaas markaas ayaa Anjali ay soo gashay oo waxay u sheegtay inay heshay barnaamijka xanaanada cusub ee Amy waxay u sheegtay inaysan rabin xanaanadaas cusub maadaama tii hore ay ka burburtay waxayna rabtay Anjali inay daryeesho balse Anjali shaqo ayay leedahay markaas ayay Amy u sheegtay bisadii dhimatay ee ceelka ku jirtay taas oo keentay in David uu meydka ka soo saaro ceelka iskuulka dhexdiisa shinni ayaa gashay fasalka oo ardaydii waa ay wada qayliyeen Amy ma aysan cabsanin waxayna koob ku qabatay shinnidii oo daaqada ayay ka sii daysay maali wuu la yaabay markaas Amy waxay u sharaxday inay gurigooda uu ku yaalo buul shinni ah aabaheedna uu baray in shinnidu ay soo weerarto oo kaliya marka la cabsi geliyo dhanka kale David wuxuu wareystay Julie oo uu shaqada soo qoratay si ay u noqoto xanaaneeyaha cusub taasoo bilaabi doonta toddobaadka dambe markaas Amy waxay maqashay maali oo ku amaanaya saacad gabar kale haysatay markay gabadhu ciyaarta ka baxdo Amy si ula kac ah ayay u tuurtay si ay u dhacdo iyadoo ka dhigaysa in ay si kama ah dhulka ugu dhacday kadib waxay ka caawisay inay kacdo si ay ugu ekaato gabar wanaagsan balse si qarsoodi ah ayay saacadii uga xadaysaa fiidkii markii la gaaray Amy waxay hor taagan tahay muraayad oo waxay ku celcelinaysaa sida loo dhoola cadeeyo oo isla markaas ay ugu ekaato mid naxariis badan subaxdii xigtay waxay xiratay dharkeeda ugu fiican oo aabaheeda ayay ka codsatay inuu u diyaariyo si ay ugu muuqato gawar dagan misana naxariis badan munaasabada iskuulka dhexdeeda ardayga ku guuleystay ee helay bilada waa maali Amy way u sacbisay balse lugteeda oo ay si caro leh u garaacayso ayaa muujinaysa inay aad u xanaaqsan tahay kadib David wuxuu la hadlayaa Mrs Iris oo u sheegtay in Amy ay tahay arday aad u fiican balse ay ku nooshahay dunideeda gaarka ah xafladda kadib Amy waxay u sheegtay aabaheeda inay iyadu mudnayd bilada iyadoo sheegaysa khaladaadka maali uu sameeyay David wuu ku canaantay hadalkaas markaas Amy way ka raali gelisay oo waxay tiri waan u faraxsanahay saaxiibkay inuu bilada uu qaato markii waalidka ay wada sheekaysanayeen Amy waxay ku casuuntay maali inuu kula ciyaaro keynta dhexeeda waxay tageen buur xeebta u dhow maali wuu cabsaday markuu arkay Amy oo si cabsi leh u dhaqmaysa daqiiqada kadib Amy kaligeeda ayaa ku soo laabatay xafladda oo aabaheeda ayay u sheegtay inay gurigooda ku laabtaan markay waalidkii maali ay weydiiyeen meesha uu jiro maali waxay u sheegtay inaysan muddo is arkin si lama filaan ah aruurtii ayaa soo qaylisay waxayna heleen meydkii maali oo xeebta yaala waalidkiis waxay u ordeen si ay u badbaadiyaan balse waa goor dambe habeenkii markii la gaaray David iyo Anjali waxay ka wada hadlayeen dhacdadaas murugta badan isagoo ka walwalsan sida ay Amy u saameyn doonto dhimashada saaxiibkeeda maali balse Amy waxay hadaldaas ku dhagaysanaysaa qolkeeda kale subaxdii xigtay David wuxuu isku dayay inuu kala hadlo Amy arrimo oo ku saabsan dhimashadii maali balse waxay tiri arrintaas maahan arrin laga wada hadlo kadibna Julie ayaa timid oo David ayaa guriga kala tusinaya ka hor inta uusan bixin markii dambe Julie waxay musqusha dhexdeeda ka heshay daawo waxayna ka xaday dhowr kiniini kadibna waxay filim la daawanaysaa Amy balse waxay tiri filimkan maahan mid isoo jiitay taas oo Amy aysan jeclaysan markay Julie ay weydiiso sida ay u dareemayso dhimashadii saaxiibkeeda maali Amy waxay ku jawaabtay iyadoo leh waxba igama kala duwana uu dhintay waana intaas khalaas Julie waxay sidoo kale weydiisay in David uu saaxiib la leeyahay gawar kale iyadoo iska dhigaysa inay sheeko caadi ah tahay Amy waxay u sheegtay in aabaheeda uu hal mar qof uu la saaxiibay balse ay iyadu aad u necbayd sidaas darteedna uu ka tagay waxay kaloo u sheegtay Julie inay aragtay iyada oo wax ka xadaysa sidaas darteed Amy waxay Julie ugu hanjabtay inay sirteeda faafin doonto haddii aysan u hoggaansamin amaradeeda hadda Amy waxaa loo ogolaaday inay seexato goor dambe ayna cuni karto jalaato iyo buskud iyadoo weliba Julie ay u adeegayso maalmo kadib waxaa iskuulka lagu qabtay aaskii Amy saaxiibkeeda ee maali dhammaan ardayda iyo dadkii ka soo qayb galay aaska waa ay ooyayeen laakiin Amy ma aysan ooyin waxa ay samaysay ayay ogtahay ileen David wuxuu la hadlay hooyadii maali taasoo u sheegtay biladii uu ku guuleystay wiilkeeda in hadda la waayay waxay codsatay in David uu soo diro sawiradii xafladda markay guriga yimaadeen David wuxuu nadiifinayaa qolka Amy wuxuuna ku dhawaaday inuu helo bilada maali oo sariirta hoosteeda ku jirta balse Amy si degdeg ah ayay ugu mashquulisay kadib David wuxuu sawiradii ka arkay in Amy si joogto ah ay u fiirinayso biladii maali maalintii xigtay Elliot waxay u tagtay David iyadoo wada taqareen waxaa ku andacotay in dad ay arkeen Amy oo gashay keynta iyadoo weliba la jirta maali sidaas darteed waxay rabeen in la ogaado haddii ay maqashay ama aragtay wax meeshaas ka dhacay maali ma uusan ahayn qof waalan sidaas darteed waa wax lala yaabo inuu buurta kore uu fuulay misan sidaas uu ku dhintay Julie waxay aragtay Amy oo si qarsoodi ah u dhagaysanaysa hadalka kulankaas waxayna isla markiiba fahantay waxa ay samaysay markii qareenku uu dhaho waxaa suurtagal ah in Amy ay tahay qofka maali dilay Amy si ula kac ah ayay u jebisay dhalo jikada taalay si ay mashquul u abuurto Elliot iyo qareenka waa ay baxeen halka David uu Amy dhaawaceeda uu daaweynayo wuxuu weydiiyey haddii ay wax ka og tahay arrinkaas balse waxay ku dhaaranaysaa inaysan waxba ka ogeyn waxay kaloo tiri Elliot waa beenaale sababtoo ah mar walba way i necbayd sidaas darteeda ayay u rabtaa inay dambi dusha iga saarto Amy xitaa waxay iska dhigtay inay ka xun tahay geeridii saaxiibkeeda maali si
aabaheeda ay ugu qanciso inaysan dembi lahayn. Kadib David wuu soo qubaystay. Markuu soo baxo wuxuu Julie ku arkay qolkiisa iyada oo u sheegaysa inay rabtay inay su'aal weydiiso. Subaxdii xigtay Julie waxay aaday aqoon isweydaarsiga David wuxuuna weydiiyey sida ay Amy u tahay. Julie waxay iska dhigtay inay jeceshahay Amy balse dhab ahaantii waxay xiisaynaysaa nolosha gaarka ah ee David. Galabtii markii la gaaray Julie waxay Amy u kaxaysay inay isla soo socdaan waxayna u sheegtay in David uu weydiinayo su'aalo badan oo ku saabsan iyada sababtoo ah shaki ayuu ka qabaa. Balse Julie waxay u sheegtay inay mar walba difaacayso Amy. Markay sii socdeen waxay arkeen Elliot oo booqanaysa guriga Mali. Markaas Julie waxay ku qososhay Amy iyadoo ku oranaysa booliisku runta waa ay u dhow yihiin waa inaad haysataa sheeko fiican oo ku badbaadin karta. Markay guriga ku noqdeen Amy waxay soo xusuusisay Julie inay og tahay inay daawo ka xaday guriga sidaas darteed haddii Julie ay hadasho iyaduna waxay sheegaysaa sirteeda oo dhan. Julie ma aysan cabsan waxayna bilowday inay ka sheekayso sida dadka dilka geysta loogu dilo kuraasta korontada. Daqiiqada kadib Julie waxay raadinaysaa Amy balse meel walba waa ay ka raadisay mana aysan helin. Mana oga in buulkii shinnida laga qaaday. Markay qolkeeda soo gasho waxay heshay biladii Mali oo sariirta hoosteeda lagu qariyay. Dhanka kale Elliot gaarigeeda ayay qaadanaysaa laakiin si lama filaan ah shinni ayaa gudaha ugu soo gashay. Way argagaxday gaariguna gacanteeda wuu ka baxay balse nasiib wanaag waa ay joojisay ka hor inta uusan shil weyn dhicin. Waxay furtay daaqada si shinnidu ay u baxdo kadibna waxay sii wadatay gaarigeeda iyadoo aan ogeyn in buul shinni ah uu kursigeeda ku dhegan yahay. Markuu David shaqada ka yimid ma uusan arkin biladiisa oo ku xirantay lambada qolkiisa. Markay Amy u timaado si ay subax wanaagsan u dhahdo waxay aragtay biladii oo si degdeg ah ayay u qaadatay. David wuxuu dareemay inay wax qarinayso wuxuuna ku qasbay inay gacanteeda banaanka u soo saarto. Julie ayaana maqashay waxayna u sheegtay David inay bilada ka heshay sariirta hoosteeda markii ay nadiifinaysay. Amy waxay isku dayday inay dhahdo ma aqaano sida ay halkaas ku gashay bilada balse David su'aalo badan ayuu weydiiyey ilaa ay sheekada oo dhan ka sheegto. Waxayna u sheegtay inay u tageen keynta si ay u ciyaaraan markii ay ciyaarta ku guulaysatayna Mali uu ogolaaday inay xirato bilada. Laakiin kadib ma ogi meesha uu ka baxay. David wuxuu canaantay Amy sababtoo ah bilada ayay ka qarisay hooyadii Mali waxayna rabtay in wiilkeeda lagu aaso iyadoo la dul saaray bilada. Amy waxay tiri fikradaas waa mid nacasnimo ah. Kadib David gaarigiisa ayuu raacay oo wuxuu wacay Angeli si ay u siiso magaca dhakhtar maskaxeed oo fiirin kara Amy xaaldeeda. Intuu wadada ku jiro wuxuu arkay shil gaari ah oo booliis iyo ambalaas ay meesha joogaan balse ma uusan istaagin si uu arko cidda dhaawacantay. Habeenkii markii la gaaray David wuxuu ku riyooday xaaskiisii uurka lahayd iyo Elliot oo u muuqda dhakhtar inay yihiin iyagoo u sheegaya inay jirto dhibaato ku saabsan ilmahooda. Subaxdii markuu soo tooso wuxuu arkay Julie oo meydkeeda uu yaalo ceelka biyaha. Amy waxay ku tiri Mali ayaa dilay gabadhan isagoo u muuqda sidii meyd soo sara kacay laakiin waa riyada dhexdeeda. Markay quraacanayeen Amy waxay eedeynaysaa Julie sababtoo ah iyada bilada banaanka keentay. Juliena waxay ku tiri waad waalan tahay. Gabar yar oo maskaxda ka jiran ayaa tahay. Kadib David wuxuu Amy u geeyay guriga Mali si ay bilada u dhiibto iyadoo ku celinaysa isla sheekadii hore. Hooyadii Mali way la yaabtay dhacdadaas waxayna u sheegtay inay weli walwalsan tahay sababtoo ah waxay hadda ogaatay in Elliot ay dhimatay. Gaarigeedii shil ayuu galay sababtoo ah buul shinni ayaa gaariga ku jiray. Amy waxay iska dhigtay inay aad uga xun tahay geerida Elliot iyadoo u sheegaysa inay ahayd macalinkeedii ay ugu jeclayd waxayna aabaheeda ku qancisay inay guriga ku soo noqdaan. Markay wadada soo socdeen Amy waxay tiri hadda ma ahan inaan ka hadalno sheekada Mali mar dambe waxayna si farxad leh ugu oroday iyadoo weydiinaysa macmacaan ay cunto. Markaas David wuxuu aqoon isweydaarsigiisa ku ogaaday in buulkii shinnida la waayay. Habeenkii wuxuu bilaabay inuu internetka ka baaro cudurrada carruurta ku dhaca wuxuuna fahmay in Amy ay noqon karto gabar maskaxda loogu jiro oo aan lahayn naxariis ama damiir damqanaya. Maalintii xigtay wuxuu u sheegay Amy in uu u geyn doono dhakhtar balse David ma arko dhiiggii gacanteeda ku yaalay. Xafiiska dhakhtarka markay tageen David ayaa marka hore la hadlay dhakhtarka isagoo u sharaxaya sida Amy aysan ugu muuqanin wax dareen ah. Kadib dhakhtarku wuxuu la hadlay Amy taas oo tiri inaysan jirin wax qaldan oo iyada dhinaceeda ah. Markuu dhakhtarku Mali uu soo hadal qaado Amy waxay u sheegtay inay 2 maalmoodan ay oynaysay. Waxay muddo wada hadlaanba David wuu yaabaa markuu maqlo qosolka gabadhiisa. Dhakhtarku wuxuu go'aamiyey in Amy ay caafimaad qabto wuxuuna u diiday in wax walwal ah laga qabo caafimaadkeeda. Markay guriga yimaadeen David wuxuu arkay Julie oo qorxaysanaysa. Markaas Julie waxay tagtay qolka Amy oo waxay u sheegtay inay saaxiib la tahay. Waxay u sheegtay inay isku dayayso inay la saaxiibto aabaheeda balse Amy waxay ugu digtay inay aabaheeda ka fogaato. Juliena waxay xasuusinaysaa inaysan ka cabsanaynin midaas. Habeenkii David wuxuu leeyahay ballan ka hor intuusan bixin Amy waxay u sheegtay inaysan weligeeda jeclaysanin in hooyo cusub uu sameeyo. Markay Julie daawanayso TV-ga nalalkii ayaa bilowda inay soo dhalaalaan. Kadib waxay maqashay dhawaaq oo way raacday ilaa ay qof ku aragto aqoon isweydaarsiga. Markay gasho albaabkii si lama filaan ah ayuu u xirmay. Waxay isku daydaa inay furto balse ma awoodo markaasay qaylisay si loo caawiyo. Albaabkii kale ayaa isna xirmay dab ayaana meesha qabsaday. Amy waxay ka daawanaysaa daaqada. Juliena waxay isku dayday inay muraayada jebiso balse gacanteed ayaa dhaawacantay. Markay dib isugu daydo dabkii ayaa si degdeg ah u qabsaday jirkeeda ayuuna gubay. Amyna way daawanaysaa iyadoo ku raaxaysanaysa. Daqiiqada kadib David ayaa soo laabtay wuxuuna arkay booliis iyo dabdamis oo gurigiisa ay horjoogaan. Waxay u sheegeen in Julie ay dhimatay meeshii aqoon isweydaarsigiina uu gubtay gebi ahaan. David aad buu u murugooday oo xitaa wuu ma tagay. Wuxuu u orday si uu laabta u geliyo Amy taas oo booliiska u sheegtay in Julie ay caado u lahayd inay sigaar ku cabto qolka aqoon
isweydaarsiga. Markii booliisku ay baxeen, David wuxuu ku qasbay Amy inay runta ka sheegto buurta iyada iyo Maali ay tageen. Amy waxay u sheegtay inay biladda ay ka qaadatay, Maalina uu aad u xanaaqay, sidaas darteed ay ku riixday si ay uga fogeyso. Waxay sheegtay in dhicitaankiisu uu ahaa shil oo keliya, ayna rumaysnayn inuu markuu qaylinayay oo uu dhahayay ma dabaalan karo inay been ka ahayd. Kadib David wuxuu weydiiyey dhacdadii hore. Amyna waxay u sharaxday in Julie ay gacanta ka qabatay markaasna ay iska tuurtay ilaa ay jaranjarada ka dhacday. Si jees ah ayayna u tiri iyada waxay ahayd qof weyn, waa inay nafteeda difaacdaa. David wuu ku qayliyey Amy markuu xaqiijiyo inay iyada ka dambeysay dhimashadii Maali iyo Julie. Amyna way qaylisay iyadoo leh mar rabo hooyo cusub iyo in aabaheeda uusan waxba ka qabanin Julie inay wax ka xaday. Kadib David wuxuu isku dayay inuu waco dhakhtarka, balse dhakhtarku fasax ayuu ku maqan yahay. Subaxdii xigtay taliye booliis ayaa soo wacay David si uu isaga iyo gabadhiisa u wareysto. David wuxuu ku yiri Amy waad xanuunsan tahay ee naso, aniguna maalmo shaqo badan ayaan leeyahay, sidaas darteed waxay ku heshiiyeen inay kulmaan Isniinta oo kaliya. Markaas David wuxuu soo toosiyey Amy oo wuxuu ku amray inay alaabteeda soo xirxirto si ay u safraan. Markay socdaal dheer galeen, waxay tageen guri aad u weyn oo ku yaala harada, waana meel uu David neceb yahay. Adeegaha guriga oo lagu magacaabo Baariyan wuxuu ku soo dhaweynayaa guriga, kadibna gurigiisa yar ayuu aaday. Fiidkii markii la gaaray, David wuxuu wacay Angeli si uu ugu sheego meesha ay joogaan, wuxuuna soo xasuustay in bastoolad ay taalo miiska sariirta agtiisa. Kadib taliyaha booliisku wuxuu wacay David si uu ugu sheego in dabkii qabsaday qolka aqoon isweydaarsiga si ula kac ah loo shiday, shaybaarnakana uu dhowaan ogaan doono cidda samaysay ficilkaas. Markuu telefoonka uu dhigo, wuxuu tagay musqusha, halkaas oo uu ku arkay hoos daahyada qubayska gadiisha ka muuqda. Si lama filaan ah gacan gubatay ayaa qabata David, wuxuuna arkay meydka Julie oo musqusha qubayska dhexdiisa yaal, laakiin waa riyo oo keliya. Subaxdii xigtay, David ma uusan qabanin telefoonka markii taliyuhu uu mar kale soo waco. Amy waxay aaday socodkeynta dhexdeeda ah. Markay soo laabatana waxay aragtay aabaheed oo daawanaya filim ku saabsan dadka aan naxariista lahayn ee maskaxda looga jiro. Taliyuhu mar kale wuxuu u soo qoray fariin, laakiin David wuu iska indho tiray. Wuxuu arkay Emma oo si toos ah u soo eegaysa, wuxuuna qirtay inuusan mar dambe kalsooni ku qabi karin gabadhiisa. Habeenkii markii la gaaray, David wuxuu fadhiyaa isagoo bastoolada wata, isagoo ka fikiraya waxa uu samaynayo. Markuu seexdo, Amy waxay dhunkatay dhabankiisa oo waxay furtay dhuumaha gaaska ee guriga oo dhan, kadibna harada ayay aaday. Burka xooggan ee gaaska ayaa soo kiciyey David, wuxuuna si degdeg ah ugu oroday inuu dhuumaha xiro, isagoona badbaadiyey naftiisa daqiiqadii ugu dambeysay. Wuxuu arkay Amy oo ag taagan harada agteeda. Markaas ayuu u dhaqaaqay isagoo weydiinaya sababta ay u samaysay waxyaabahan oo dhan. Amy waxay ku tiri waxaad rabtay inaad la noolaato Angeli soo maahan. David gacanta ayuu ka qabtay oo gudaha ayuu ku celiyey. Kadib wuxuu muddo uu fiirinayaa sawirka xaaskiisii, wuxuuna jajabiyey kiniin hurdo ah oo koob ayuu ugu riday Amy. Markay rabto in kareemka dusha la marsado ay soo qabsato, wuxuu uga tagay koobkiisa iyo keedaba si uu ugu keeno kareemka. Waxay wada cabeen kofeyga ilaa Amy ay hurdo la dhacdo. Kadib David wuxuu wacay Angeline si uu ugu sheego wax kasta oo Amy ay samaysay, balse ma aysan rumaysanin. Wuxuu sidoo kale u sheegay inuu qaatay go'aan adag. Habeen dhexe Amy way soo kacday, waxayna tagtay qolkii aabaheeda. Waxayna bastooladii gelisay gacantiisa oo xabad ayay riday, balse rasaastu barkinta ayay ku dhacday. David wuu soo kacay, wuxuuna ogaaday inuusan si fiican u dhaqaaqi karin sababtoo ah koobabkii kofeyga ayay u beddeshay. Markaas isagaa kaniiniga hurdada cabay. Wuxuu awooday inuu bastoolada uu ka qaado Amy, balse iyadu taleefankiisa ayay qaadatay. Markuu David uu dhulka ku sii dhacay si uu bastoolada uu u soo qaato, Amy waxay wacday nambarka gaaban ee 911 iyadoo ooyeysa oo leh aabahay uu rabaa inuu idilo. Waxay u carartay musqusha si ay isugu soo xirto. David wuu dabagalay oo albaabka ayuu jabiyey, bastooladana kor ayuu u taagay. Isla markaas Baariyan oo ka dambeeya ayaa soo baxay. Amyna mar kale ayay qaylisay si gargaar ay u hesho. Markii dhawaqa booliisku uu soo dhawaanayo, David wuxuu u diyaarsan yahay inuu toogto gabdhiisa, laakiin Baariyan ayaa isaga ka hor toogtay. David neeftii ugu dambeeyay ayuu sii qaatay ka hor intuusan dhimanin. Daqiiqado kadib booliiska ayaa yimid. Baariyan wuxuu u sheegay in David uu rabay inuu dilo Amy. Angelina way timid, waxayna u sheegtay in David uu xanuunsanaa, iyadoo Amy habsiinaysa. Amyna way dhoola cadaysay iyadoo guul iyo qanasnanaan dareemaysa.